kulanti wacan dhammaantiinba daawadayaal ku soo dhawaada channelkeena Hal Abuur ayaan leh marka hore taabo subscribe ku dhufo gambaleelka si aad ula socoto hadba barnaamijka cusub ee soo galino maantana waxaanu idiin haynaa maansa la magac baxday Maqsuud maansadaasi oo u dhacayso si darandooriya ama talantaaliya gabadh iyo wiilna isku weydaarsanayaan erayo marka hore waxaa bilaabaya wiilka kaasi oo ah qofka aragtida hore ku horeeyay ee gabadha arkay jacaylkuna uu isaga ku bilaabmay waxaana u jawaabaysa gabadha oo aanan iyadu inta hore sadkaynaysa ereyadana si aanan haboonin ugu jawaabaysa maansadu waxay ku bilaabmaysaa sida tan waa maalin qiimo leh mintu waa aroornimo waa madal barwaaqeed maashiyey roobkuna cusub iyo mucbaayaal dhirtu waa magoolo waa midho loo bogay maandeeq haweenoo malka laydhsanaysaa isha milicsigeedii maankayga faydoo muxubada iyo jeedhaan micno kale u waayo waxaan idhi maqsuudey marka hore aroor wacan markii xiga dantayda magacaaga ii sheeg waxay tiri maxaa jira yaa tahay maxaad rabi ma qofkaa hallaabood maadinaysa baa jira waxaan idhi maye fahan maqsadkiyo ujeeddada magacaaga ii sheeg waa maynu kulannaa waxay tiri middaas dhaaf mar looma baahno minidka iskurayee mucda hadalka aadoo micnahaaga ii sheeg waxaan idhi maqsuuday gobtu waa magaalo waa madalis fahanoo misna murun ma yaallo mucdu hay dambaysee milgihii haweennimo adigoon marseegin magacaaga ii sheeg waxay tiri mas-uulow magacaygu waa muna maandeeq inaan ahay muuqaygu kugu filan balse waa markaagee magacaaga adiguna marka wuxoogaa gabadhii inay soo dabacday baad dareemaysaa mar haddii magaciigii sheegtay bal waaynu sugaynaa wiilkuna waxuu idhaa waxaan idhi maqsuuday muna ina wasiiray magacdaydu waa dhowr dadka qaar majoogiyo moogay yidhaahdaan qaar kale marwaan iyo mudana yidhaahdaan waxay tidhi marwaanow mar kaleeta moogow mudaniya marjoogow magacdaada uma bogin balse moojidaadii midkan kugu yeedha waxaan idhi maqsuuday maadaysi dhaafoo midkaada iigu yeedhiba magacdayda weeyaan miisaanka hadalkana maankaygu kuu furan midigtaydu kuu diran intaan miirka qaybtegin ma ismehersanaayo ma dhisnaa hanaan guri waxay tidhi miskiinow meer hay dambeeye maxaad maal adduunyiya hanti magansanaysaa oo halka dumarka laga maray waxaan idhi maqsuuday maal waxaan ku faanaa ida madax madow iyo maqal aan badnayn iyo ramad geelmiciise macidlaan ku noolahay waxay tiri warmoogow middaas qaadan maaye dahab muuq dhalaal iyo maar aan jabnayn iyo dollar maad helaysaa mise meel kaleetaadu minguurin xaajada waxaan idhi maqsuuday miliqsigu ma fiicno meherliisma diideen maxaa maalba noo galay wadaad aan mug weyneyn masjidkan ka soo qaban maqsin baynu degi qura dumar noo mashxaradana midh yar waynu soo heli muxubada galgacalkiiyo midho caashiq beeraan ku maandoogsanayna waxay tiri warmoogow miyuun hadalku maankiiyo maskaxdaada soo marin miyaad riya hadlaysaa ma maandeeq haweenoo dahab maadinaysaad maqsin qura ku leedahay meher iyo adduun iyo mulki baad u leedahay waxaan idhi maqsuuday muna ina wasiiray maal badan ninkaydshaa micna keeni maaye jacayl midha dhalkiisiyo muxubada ma dhowrnaa waxay tiri warmoogow marka kale marwaanow haweenada maseer kale midnimaan wadaagnaa jacayl midha dhalkiisiyo muxubada aad sheegtaa haddaan maalba loo hayn maxay soo kordhinayaan waxaan idhi maqsuuday muna ina wasiiray maandeeq haweeney maxaad iga dhibaysaa midigtaada ii dhiib mal wax sheegi maaye waxay tiri marwaanow marmajoogihiyow middaas yeeli maayo noloshayda muuqale dabin uma murginayee ruux kuu miciinoo kula maana waad heli waxaan idhi maqsuuday muna ina wasiiray mar haddaad sidaa tidhi kaa maarmi maayo xusuusaha mar aragaama masixi karaayee intaan mawdku ii iman magacaagu igu dhigan maankaygu kuu qalan maansadu waxay kusoo afmeermaysaa ay kusoo dhammaanaysaa sida